maanta waa 29 bisha 8 2018 guddiga hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay halkan ka diraysaa fariin iyo yeerma oo dhammaan shaqaalaha dawladda intii aan isdiiwaangelin loogu sheegay jadwalka dib u eegidda dadkii cabasho ama codsi qabay hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay u gudbisay wasaaradda iyo hay'ad walba oo dawladeed tiradii shaqaalaha aan isdiiwaangelin marka laga reebo intii aan dhawaan u gudbinay wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud si shaqada looga saaro kaalimahaas oo dhanaa 1252 ay hay'adda shaqaalaha dawladdu wajigii koobaad ka joojisay kaalmaha shaqo ee aan jirin markii hore aan ahayn kaalmo shaqo oo jira hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay muddooyinka u dambeeyay gacanta ku haysay dib u eegidda 1224 kaalimood oo isugu jiray duliyaal fasax caafimaad fasax waxbarasho dood magac iyo dadkii dhintay ee payroll-kadana ku jiray hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay halkan baaq uga diraysaa dhammaan shaqaalaha dawladda ee aan isdiiwaangelin isla markaana aan ku jirin 1252 shaqaale ee aanu ka joojinay shaqada kaalmaha shaqaanu ka saarnay in ay degdeg ula xiriiraan wasaaradda iyo hay'adda dawladeed ay ka howlgalaan si ay u helaan jadwalka diiwaangelinta iyo dib u eegidda dacwadaha intii markaa qabtay diiwaangelinta iyo dib u eegiddaasi dacwadda waxa u fadhiisan doona guddi 1 bisha September ilaa 11 bisha September 11 cisho waxa ku soo dhamaan doona dhammaanba dadkii u baahnaa in dib u eegis iyo dib u qiimeyn lagu sameeyo halkaas hay'adda shaqaalaha dawladdu soo saari doonto liiska ugu dambeeya ee runtii mar labaad ama la diiwaangelin doono ama shaqada laga joojin doono shaqaale adeega meel joogtaba hadii aanad isdiiwaangelin aanad kuna jirin 1252 shaqada laga joojiyay degdeg ula xiriir wasaaradda iyo hay'adda dawladeed waxaan fariintan kugu soo dirayaa waa markii ugu dambeysay iyo fursadii ugu dambeysay ee dib u eegis diiwaangelin dacwad iyo dood hay'adda shaqaaluhu ay dib u dhageysan doonto kaalimaha shaqo wixii halkii hore ka soo banaanaaday iyo kuwa la isku daray hay'adda shaqaaluhu waxay bilaabaysaa qorsheyntii iyo qaybintii iyo tartamadii inay furmaan dhammaan shaqaalaha dawladdu meel ay joogaan ba intii aan isdiiwaangelin hala xiriiraan hay'adooda dawladeed sida ugu degdega badan si ay u helaan dib u qiimeyn dib u dhageysi iyo haddii ay ansaxaan dib u diiwaangelin